qaxootigii ugu badnaa oo gaaray Giriiga iyo dhibaato ay haatan wajahayaan. Waxaa sii kordhaysa tirada dadka muhaajiriinta ah ee gaaray dalka Giriiga xilli Turkiga uu furay guud ahaanba xuduudaha dalkiisa si qaxootiga ku sugan ay ugu qulqulaan dhanka dalalka reer Yurub. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya xuduudda wadankan Turkiga uu la leeyahay Giriiga ayaa sheegaya in tiro ka badan 17,000 oo ruux ay halkaasi ku sugan yihiin, kuwa oo haatan la daalaa dhacaya qabowga daran ee xilligani dhacaya, gaajo iyo weliba sunta dadka ka ilmeysiisa oo ay u adeegsanayaan ciidamada ilaalada xuduudda dalka Giriiga. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo Sabtidii la hadlay baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay in ilaa iyo Sabtida soo socota tirada qaxootiga gaaraya xuduudda Giriiga ay kor u dhaafi doonaan 30,000 oo ruux, waxaana uu cambaareeyay tallaabada Giriiga uu ku xanibayo qaxootiga qulqulaya. Hogaamiyaha Giriiga ayaa ku doodaya in aysan xilligani xamili karin martigelinta tiro intaas le'eg ee qaxooti ah, kuwaasi oo u badan kuwa u dhashay Suuriya oo ka soo cararay dirirta muddada dhowrta sano qaadatay ee ka soconaysa gudaha dalka Suuriya. Shirka urur goboleedka IGAD oo ka furmay Khartoum. Magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa ka furmay shir ay soo abaabuleen oo ay iska kaashanayaan urur goboleedka IGAD iyo Midowga Yurub, kaasi oo ay ka qaybgalayaan wasiirada arrimaha dibadda ee xubinta ka ah ururkaasi. Shirkani waxaa Soomaaliya u matalaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Ambassador Maxamed Sheikh Isxaaq, xogayaha joogtada ee wasaaradda Danjire Maxamed Cali Nuur, iyo diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda. Shirkani ayaa diiradda lagu saarayaa qodobo ay ka mid yihiin qorshaha 100 maalmood iyo dib u habeynta urur goboleedka IGAD, nabadgelyada iyo arrimaha gobolka, iskaashiga badda cas iyo gacanka cadmeyd, iskaashiga cimilada iyo muhaajiriinta. Shirkaasi waxaana warbaahinta qaranka uga warbixiyay muhiimadda shirka oo u lahaa Soomaaliya iyo weliba mandaqada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Axmed Ciise Cawad. Digniintii ugu sarreysay oo laga soo saaray caabuqa coronavirus. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa qiimeyn ay sameeyeen caabuqa coronavirus ku tilmaamay in uu khatar sare ku hayo dunida, balse WHO ayaa sheegtay in weli ay jirto fursad wax looga qaban karo caabuqa haddii laga hor istaago faafintiisa. Madaxa WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa sidoo kale sheegay in cabsi iyo xog khaldan oo xanuunkani ku saabsan ay yihiin caqabadaha ugu weyn ee ay tahay in wax laga qabto. In ka badan 50 dal ayaa haatan soo warinaya kiisas caabuqa coronavirus ah. Ilaa laga soo xigtay waaxda Iran ayaa BBC u sheegay in ugu yaraan 210 qof ay u dhinteen caabuqa. Tiradan ayaa 6 jeer ka badan tan ay shaaciyeen saraakiisha dowladda. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Geneva ayaa Dr. Tedros waxa uu ka sheegay in inta badan kiisaska wax laga qaban karo, isla markaana aan wax cadeyna loo hayn in caabuqan uu si fudud ugu dhex faafo bulshada. Dr. Mike Ryan oo isagana ah madaxa hay'adda WHO ee barnaamijka caafimaadka degdega ah ayaa sheegay in digniintani loogu talagalay in ay hagto dowladaha maadaama uusan hanaanka caafimaadka dalalka u diyaarsanayn caabuqa. Dhinaca kale, xildhibaan goordhow u dhintay caabuqa coronavirus. Wakaaladda wararka dalka Iran ayaa maanta warisay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi uu u geeriyooday caabuqa coronavirus. Maxamed Cali Ramazi ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka dalka Iran, waxa uuna maanta u geeriyooday xanuunkani oo maalmo ka hor ku dhacay.
waa berigii hore ee saaka ayaa la sheegay in xildhibaankan loola cararay cisbitaalka kadib markii uu xanuun daran ku qabtay caabuqa uu u geeriyooday ee coronavirus. xildhibaan maxamed ayaa noqonaya siyaasigii ugu horreeyay ee u geeriyooda cudurka coronavirus ee gudaha dalka Iiraan, waxaana xusid mudan in laga helay madaxweyne ku-xigeenka Iiraan iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dalkaasi Iiraan. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee gudaha dalka Iiraan ayaa sheegay in cudurkani ay u geeriyoodeen ilaa 43 qof, halka sidoo kale la helay 593 kiis oo ku saabsan cudurka halista ah dilaagana ah ee coronavirus. ugu dambaystiina Mareykanka iyo Taliban oo heshiis taariikhi ah kala saxiixday. Mareykanka ayaa kooxda Taliban la saxiixday heshiis taariikhi ah oo shalay gelinkii dambe dhacay. heshiiskaasi oo u gogol xaaraya in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan 14 bilood ee soo socota, taasi oo soo afjaraysa colaadda 18 sano jirsatay ee dalkaasi ka taagnayd. inkastoo heshiiskani uu qeexayo in Mareykanku uu si tartiib uga baxo dalka Afghanistan, wadahadallada dhinacyada Afghanistan ayaa noqon kara kuwa aad u adag. heshiiskani ayaa waxaa ku kala saxiixday caasimadda Qatar ee Dooxa ergeyga wadaxaajoodka ee Mareykanka Salmi Khalilzad iyo madaxa siyaasadda Taliban Mullah Abdulghani Baradar. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda saxiixa heshiiskan. xogayaha difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa u duulay magaalada Kaabul. qorshaha ay khuburadii ku sheegeen in looga gol leeyahay sidii xukuumadda Afghanistan loogu xaqiijin lahaa ka go'aanshiyaha Mareykanka ee taageerada dalka Afghanistan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay Taliban iyo xukuumadda Afghanistan in ay fursadani ka faa'iideystaan, isaga oo xusay in haddii laga dhabeeyo kamira dhalinta waxa lagu heshiiyey ay horseedi doonto soo afjaridda colaadda Afghanistan iyo in ciidamada Mareykanka ay dalkoodu dib ugu laabtaan. madaxweynihii hore ee Afghanistan Hamid Karzai ayaa u sheegay laanta Afghanistan ee idaacadda VOA-da in uu ku faraxsan yahay saxiixa heshiiska nabadeed ee shalay. waxa uuna xusay inuu ku rajo weyn yahay in wadahadallada kooxaha Afghanistan ay si dhaqso ah u bilowdaan. wadahadallada dhex maray Taliban iyo saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa lagu wadaa in ay bilowdaan muddo 10 cisho gudaheeda.